أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. waxaan ku dhex jeelnaa weli kitaabkii cumdaha ama taysiirulcallaam. waxay noogu soo dambaysay labadii rakacadood ee salaada subax ka horaysa qofkii tukada inay uga khayr badan tahay adduunka iyo waxa markaa dul saaran. baabul aadaani, aadaankii ayuu baab u yahay. aadaanku waa iclaan, waa ogeysiin. saa darteed baa waxaa la ogeysiinayaa dadku in wakhtigii salaadu ay markaa gashay. xilligii magaalada madiine la yimid dadkuna ay bateen ayaa waxaa laga fakaray sidee loo heli karaa arrin dadka loogu iclaamiyo ama ogeysiis ahaan loogu gudbiyo say u ogaadaan in salaadii ay gashay, hal marna laysla yimaado kabacdina si wada jir ah loo tukado. shir baa la galay, iqtiraaxaad baa la keenay, qof kastana ra'yi buu soo dhiibtay. nin baa yidhi buun aan soo qaadano oo aan yeerino. buud markuu dhaho dadku ha gartaana in wakhtigii salaada la gaaray. waa calaamad yuhuud baa la yidhi ee naga daaya, yaanan shabbihine. ku kalea wuxuuhi jaras aan keenaynaa, bahalkan gambaleelka lagu magacaabo, kaasaa la yeerinayaa si qof kasta oo soo maqluu salaada u soo xaadiro. kirishtanka ama nasaara isticmaashee naga dhaafa, yaanan shabbihin baa la yidhi. nin kale intuu soo booday wuxuu yidhi dab weyn ha la shido oo xilliga salaada marka la gaaraba wixii rogaasa intas lagu siiyo kor ha u baxo dabka. markay soo arkaan muslimiintan ha la soo kala cararo, kadibna masaajidka ha la yimaado. majuustaa samaysaa layidhi dabka caabudee naga daaya. go-aan aydoon la gaarin yaa la kala dareeray. cabdullaahi ibnu zayd ibnu cabdirabbi nin la yidhaahdo yaa habeenkii wuxuu ku riyooday asagoo nin buun watoo yeerinaya. bal saaxiibo buunka isii see yeelaysaa, salaadaan isugu dhawaaqanaynaayo salaadaan isku ogeysiinaynaa. markaasuu dhaa waxaan wax ka fiican maku daraa. haa, marka wakhtiga salaada la gaaro allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah. aadaankii buu u laqinay una sheegay. subaxii buu hurdada ka soo kacay cabdullaahi, rasuulkuu u yimid. markaasuu rasuulku riyadii u sheegay. nebiguna wuxuu dhahay waa riyo xaq ah, waa riyo dhab ahee bilaal uwac oo bar aadaanka, asagaa kaa cod dheere. saasuu markaa aadaanka ku yimid. can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi umira waa la amray bilaal waxaa la amray an yashfaca alaadaana, aadaanka inuu labalabeeyo, wayu'tira aliqaamata, aqimkana uu witriyo. aadaanka inuu labalaba ka dhigo. allaahu akbar allaahu akbar oo hal ah, allaahu akbar allaahu akbar macnaha afar waa. ashhadu an laa ilaaha ila allah, ashhadu an laa ilaaha ila allah, ashhadu anna muxammadan rasuulullah. macnaha saasoo kale aadaanka inuu shafciyo, uu tiro isla eg ka dhigo, uu labalabeeyo. aqimkana inuu witriyo. allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah, ashhadu anna muxammadan rasuulullah. macnaha xabad xabad inuu saa markaa uga dhigo. wa can abi juxayfata wahb bni cabdillaahi assuwaaniy qaala wuxuu yidhi aataytu nabiya, nebigaan u imid sala allahu calayh wasalam, wahuwa rasuulkoo fii qubbatin teendha ku dhex jira. teendhadaasoo lahu asagu u sugnaatay xamraa'a oo guduudan ama casaan ah oo min adamin maqaar ka samaysan. ninka lagu magacaabo abi juxayfa waa wahb bni cabdillaah assuwaaniye. wuxuu dhahay rasuulkan soo gaaray ama u imid, nebigana qubad ayuu ku jiraa teendho lahu xamraa'un oo guduudanoo asagoo markaa u sugnaatay. wuxuu nebigu ku jiray teendho oo noocaasoo kale markaa ah. xamraa bay ahaydoo waa gaduudnayd. teendho oo gaduudan ayuu markaa ku jiray amase markaa casaan ah. qaala wuxuu yidhi fakharaja bilaalun, bilaal baa soo baxay oo wuxuu la soo baxay biwaduu'in biyo weyso.
horaan u soo tilmaanay wow haddii la fadxiyo la kordhigo waa biyaha waysada, haddii la godana waysqaadka laftigiisaa la yidhaahdaa. biwaduu'in fa min naadixin mid rusheeyey iyo wanaa'ilin mid uu gaaray, labadaasay markaa ahaayeen. dadkii waxay u qaybsameen mid rusheeyeyoo macnaha biyihii nebiga intuu ku soo waysqaatay ka dareeray, kaas waaye. way barakaysanayeen marka saxaabada. qofna waa markii saa loo soo firdhiyey ayay biyihii gaareen, midna ma aysan gaarine mid u gaaray ayaa intuu saa uga qaatay ayuu korkiisii marsaday. qaal wuxuu dhahay saxaabigii fakharaja annabiyu, nebigaa soo baxay sala allahu calayh wasalam, calayhi korkiisa waxaa saarnaa xullatun isku joog, waa bilad xamraa'un oo guguudan, ka'annii waxaad moodaa buu yidhi anduru inaan fiirinayo ilaa bayaadi saaqayhi, shanshooyinkiisa. saaqaynka waa jilibka hoos marka loo baxo ilaa anqowga kor marka loo soo aado lafdheerta, shanshooyinkiisa caddaantooda inaan hadda u jeedo yaad u moodaa. qaala wuxuu dhahay fatawada'a wuu isqaatay nebiga, waadana bilaalun, bilaalna waa aadaamay. qaala wuxuu yidhi fajacaltu waxaan guda galay atatabbacu inaan raacraacayo faahu afkiisa, haahunaa wa haahunaa, meeshaan iyo meeshaan, waa yamiinan iyo wa shimaalan. xaya cala asalaad, xaya cala alfalaax asagoo dhahaya, waayo qofka mu'adinka ah xaya cala salaad markuu dhahayana midigta inuu fiiriyo waay. xaya cala alfalaaxna macnahan dhahe markuu dhahayo xaya cala asalaad inuu fiiriyo midigta, xaya cala alfalaaxna bidixda. uma kabacdi rukisat lahu waxaa loo suray nebiga, lahu asaga canazatun ul waran ah. canazada waa usha, hoosna waranka birta ka ahoo dhulka lagu suro, inta korana qori ama alwaax ka ah, waa eebo. fataqadama wuu hormaray nebiga, wasalla duhra, duurkii buu dadka dujiyey, rakcatayni, 2 ragcadood bacdamaa safar uu yahay. uma kabacdi nazala wuu degay, yusalli rakcatayni, 2 ragcadood uma kabacdina nazala wuu degay meeshii, yusalli wuu tukanayay rakcatayni, 2 ragcadood, xataa rajaca ilaa uu u soo laabtay ila almadiinati, magaalada madiina. wixii 4 ahna 2 ragcadood ayuu markaa rasuulku tukanayay. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله أنه قال وحده نبي إن بلال يؤذن وآذان بالليل هرين، فكلوا عنا واشربوا أبا حتى تسمعوا إلا أبنقشان آذان ابن أم مكتوم. وعبد الله بن أم مكتوم منك لغم يعاونين إن دول أها marka bilaal hadduu aadaamo suxuurtiina cuna, cuntadiina cuna, waa hadday soon tahay. waayo bilaal wuxuu aadaamaa habeen ayadoo ay tahay, wakhti aan la gaarin salaadii subax ka hor buu aadaamaa, waa aadaanka koowaad. marka aadaanka bilaal yuusan idinka celinin cuntadiinii cabitaankiina ilaa aad maqashaan ibni ummi maktuum aadaankiisa. riwaayadaha qaarkood waxay ku dareen wakaana rajul acmaa buu ahaa, nin indhoolayo ee ibni ummi maktuum ma aadaami jirin xataa la dhaho asbaxta warwaa waad bariisatay istaag ee aadaan. marka 2 aadaan baa markaa jiri jirtay. aadaanka koobaad markuu dhacana cuntada waa layska cunaa oo waa la saxuurtaa, waxaana loogu talagalay qofkii taaganna in la soo celiyo, qofka hurdayna lagu kiciyo. laakiin aadaanka labaad hadduu dhaco cuntada waa la joojiyaa. fakuluu washarabuu, cuna oo caba, xataa tasmacuu ilaa aad maqashaan aadaana ibni ummi maktuum. wacan abi saciidin alqudri radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi, rasuulkii alla wuxuu dhahay sala allahu calayh wasalam, idaa samictum haddaad maqashaan almu'adina qofka mu'adinka ah oo aadaamaya, haddaad aadaanka maqashaan faquuluu dhaha midla maa yaquulu, waxa uu dhahaya oo kale. qofka aadaamaya waxa uu dhahaya ka daba dhaha. markii saa'a u dhammaysanood ka daba dhahdaan ee uu dhammeeyo, intaa kabacdina dhaha allahuma rabbi haadihi dacwati taama waasalaati alqaa'ima, horaan markaa u soo marnay. idaa samictum almu'adina, mu'adinka haddaad maqashaan faquuluu ka daba dhaha
mithla maa yaquulu waxa uu dhahaya oo kale baabu istiqbaali alqiblati qiblada la qaabilo qiblada qaabilitaankeeda waa shardi ka mida shuruuda salaada can ibni cumara ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa buu yidhi yusabbixu mid ku sunnaystaa calaa dahri raaxilatihi gaadiidkiisa dhabarkiisuu ku sunnaysan jiray nebiga xaysu kaana meel allaala meeshii wajhuhu wejigiisa uu yahay hadduu galbeed u socdo hadduu bari u socdo hadduu koonfur u socdo haddii dhanka qiblada uu u socdo ma kala fiirinaynin waa soconaya oo asagoo gaadiidkiisii saaran uu sunnada ku tukan jiray qiblada maba la fiirin jirinba meel allaala meeshay ula wajahdo ama ay u socoto yuumiu bira'sihi madaxiisuu ishaari jiray marka nebiga yuumiu waa ishaarayaa bira'sihi madaxiisa sujuudda iyo rukuucda waa ku ishaari jiray wa kaana ibnu cumarna yafcaluhu mid saa sameeyuu ahaa ibnu cumar waxaa la yidhaahdaa waa ninka ugu dayashada badan saxaabadoo dhan marka la fiiriyo nebiga sal alla calayh wasalam waa ninkii isku dayi jira markuu safar yahay meeshuu nebigu deguu degi jiray meeshuu ku tukaduu ku tukan jiray saasuu markaa yeelaya waa marka ibnu cumarna saasuu markaa ahaa qibladoo la qaabilo waa shardi ka mid ah shuruudaha salaada saa tilmaanay laakiin mararka gobol ka mid ah laga tegi karaa marka meesha noogu qoran oo kale xadiidku wuxuu tilmaamaa qofka qiblada markaan loo baahnayn waa markuu salaadii tukana ay sunno tahay kow safarna uu markaa yahay markaa qiblo looma baahna marka ugu horeysuu xiranaayo yaa wuxuu u jeesanaa dhanka qiblada kabacdin wuxuu u soconaa meel allaala meesha socodkiisu yahay horuu markaa uga tukanaa ibnu cumar wuxuu leeyahay ana rasuula allahi sal alla calayh wasalam kaana yusabbixu wuxuu ku sunnaysan jiray calaa dahri raaxilatihi raaxiladiisa dhabarkeeda baabuur haddaa saaran tahay oo safar aad tahay sunno aad tukanaysid qiblo looma baahna xaysu kaana wajhuhu waa meesha wejigiisii socodkiisa uu yahay horta uu meeshuu u socdo yuu markaa u tukanayay yuumiu bira'sihi madaxiisana wuu ishaaraayay ilan daabaduu saaran yahay sujuud uu dhulka ku sujuudi karo ma laha rukuucii sujuudna waa ishaara wa kaana ibnu cumarna yafcaluhu saasuu samaynayay wa fii riwaaya waxay ahayd kaana yu'tiru wuu witrinayay mid ku witriya buu ahaa nebiga calaa baciirihi ratigiisa asagoo ratigiisa saaran ayaa wuxuu tukanayay witriga walimuslim hayra laakiin annahu laa yusallii kuma tukan jirin calayha daabada korkeeda almaktuubata salaadaha waajibka ah salaada waajibka ah ma ku tukanaynin ee waa qasab qofku inuu soo dego kadibna uu qiblada qaabilo laakiin salaadaha sunnooyinka ah dhib markaa kuma sugno qofkii xanuunsan isbitaal jiifoo qof gediya oo qiblada u jeesiyana u jeedin asagana kayfa amkin buu u tukanaa sidai u suuro gashaa xilliga dagaalka lagu jirana waa la mid qofka mar allaala marka uu dagaal ku jiro oo dagaal cadow islaam iyo gaalo dagaalamayaan macnaha cadow ay la dagaalamayaan muslimiinta qofka noocaas ahna qiblo markaa ma jirto fain qiftum farijaalan aw rukbaanan buu dhahay ilaahay hadday cabsi jirto idinkoo ordaaya iyo idinkoo gaadiid ka saaran markaa ku tukada walimuslim hayra annahu ma ahayn asagu laa yusallii mid ku tukada calayha nebiga daabada korkeeda almaktuubata salaadaha waajibka ah walilbukhaariyi waxaa u sugnaa ila alfaraa'ida waajibaadka maahane waajibka waa qasab marka qofku inuu soo istaajiyo daabada soo dego kabacdina uu markaa tukado wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti annaasu dadku biqubaa'a masjidka quba ay joogaan fii salaati subxina ay tahay id jaa'ahum waxaa u yimid aatin mid imaanayay faqaala wuxuu ku yidhi ina alnabiya sala allahu calayhi wasalam baa qad unsila la soo dejiyey calayhi korkiisa alleylata xalay ama caawa qur'aanun baa lagu soo dejiyey waqad umira waxaa lagu amray qur'aanka dhexdiisa an yastaqbila alqiblata inuu qiblada qaabilo ee fastaqbiluuhaa qaabila markaas ay waxay u dukanayeen dhanka shaam ama bayt almaqdis waa intaan la waajib yeelin in lagu soo jeesto qiblada wa kaanat wujuuhuhum wejiyaalkooda wuxuu ahaa uu u jeeday ila ashaam fastadaaruu way soo wareegsadeen salaaddii lagama bixin ayadoo sidoodii loo taagan yahay iyo hal mar laysa soo wareejiyey
ila alkacbati kacbada loo soo wareejiyey ayay isu soo wareejiyeen meeshii ay u jireen ee baytulmaqdis waa ka soo wareegeen dhanka kacbada ay markaa u soo jeesteen ibnu cumar wuxuu leeyahay waqti oo masjid quba ay ku tukanayeen dad salaad subax ninaba yimid ninkaasi masaajidka nebiga intuu ku soo tukaday yuu soo maray ayaga nebiga marka hore wuxuu u tukan jiray 12 bilood baa layidhi madiine intuu joogay wuxuu u tukanayay baytalmaqdis wuxuuna aad u jeclaa in qibladaas laga soo wareejiyo kacbadana loo soo wareejiyo markasta cirkuu fiirin jiray si waxii loogu soo dejiyo ilaa ilaahay soo dejiyey qad naraa waa ku aragnaa oo waa ku jeednaa rasuulkii allow taqalluba wajhika soo gedgedintaada wejiga aad u soo gedgedinaysa ila samaa'i cirka xaggiisa waa markasta wuxuu jeclaa in waxii soo dego oo la wareejiyo falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha waxaan kuu wareejinaynaa qiblo aad jeceshahay fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam u jeeso saa markii lagu soo dejiyey nebiga habeenkii salaadii subxeed buu ku dujiyey dadka kacbada nin la soo tukadaa intuu soo baxay yaa wuxuu soo maray xaafad masjid quba ku taala oo dadkii ay u jeedaan oo waxyigii aan weli soo gaarin oo ay u jeedaan dhanka shaam markaasuu sidaa yidhi marka fi salaati subxi id jaa'ahum aatin mid imaanayay baa yimid faqaala markaasuu dhahay ina alnabiy dadka salaada ku jiro la hadlay nebigii qad unzila calayhi alleylata waxaa xalay lagu soo dejiyey qur'aanun waqad umira waxaa la amray an yastaqbila alqiblata qiblada inuu qaabilee faistaqbiluuha qaabila wa kaanat wujuuhuhum wajiyaalkoodu ila shaam buu u jeeday dhanka shaam fastadaaruu markaasay u soo wareegsadeen hal mar ila alkacbati kacbada wa can anas ibni siriin qaal wuxuu yidhi istaqbalna anasan anas baan soo dhoweynay xiina qadim markuu ka soo galay min ashaam falaqiynaahu waxaan kula kulannay bicayni tamri meel lagu magacaabo caynu tamr fara'aytu waxaan arkay anasoo yusallii tukanaya calaa ximaarin dameer korkiisa wa wajhu wejigiisana min daljaanibi jaanibkuu u jeedo macnaha meelaan qiblada ahayn yacni can yasaari alqibla qiblada bidixdeeda ayuu u sii jeeday faqultu waxaan ku idhi anasow ra'aytuka waan ku aragnaa tusallii adoo u tukanayay ligayri alqiblati qiblada meelaan ahayn maxaa dhacay faqaala wuxuu yidhi anas lowlaa annii ra'aytu rasuula allahi haddaan ahaan lahayn mid arkay rasuulkii ilaahay oo yafcaluhu samaynaya saan maa facaltuhu maba samayn lahayn buu yidhi arrintaan hadda aad igu aragteen waxaan arkay rasuulkii ilaahay oo samaynaya saasaan ani markaa u sameeyey idan anas waa musaafir teeda kale salaaduu tukanayo waa sunno xaaladahaasaa marka waxay tilmaamaysaa saan hore markaa u soo marnay wa can anas ibni siriin waa taabici qaala wuxuu yidhi istaqbalnaa waxaan qaabilnoon ka hor tagnay oo soo dhoweynay anasan waa anas ibni maalik xiina qadim markuu ka yimid uu ka soo galay min ashaam falaqiinaahu waxaan kula kulannay bicayni tamr meel magaceeda waaye fara'aytu waxaan arkay anasoo yusallii ku tukanaya calaa ximaarin dameer korkiisa wa wajhuhu wejigiisana min daljaanibi yacni can yasaari alqibla loola jeedaa kacbada uma jeedine bidixdeedu markaa u sii jeeday faqultu waxaan in ra'aytuka waan ku arkay tusallii adigoo tukanaya ligayri alqiblati qiblada meelaan ahayn faqaala wuxuu dhahay lowlaa annii ra'aytu rasuula allahi haddaan arki lahayn rasuulkii ilaahay yafcaluhu oo saa samaynaya maa facaltuhu anna maba sameeyeenba baabu sufuufi ayaanu geli doonnaa wabillahi tawfiiq wallahu aclam.